بكروا يورنا سيدي وحد عين أنت أنا ككار ما أعرف المقرب لكن درت دكتة دورني ما يعني نقول بلا جنجد يا واحد لو صوت توري جري دقح ياش فرد أنا لو صوت توري مقرب دقح ذا حقي لقى صوت توري حقي سلاقو توري طبعا لينا إن نقول ديلا دك فرد أنا ما وأنا في شيري ماشي ما جول ملا مقرب دانك كور هذا كفيري سو دانك هوس ولا صوت سيدنا دانك هوس هذا كور ولا صوت سيدنا إمسا maalmood idinku socdaa weerarka dhagaxda ahi weerarka dhagaxda waxaa nagu socday maalintii 8 saac duhurnimo laga bilaabay ilaa bacda al-isha ilmada waxay quraan baa la saaray adiga habeenkaas alxamdulillah wax la soo tuuray ma jirin si nabad ayaan seexana ma garad maalintii labaad bacda salaad adiga salaada subax xaafada waxaa lagu bilaabay jingadan ku soo dhacayo saan adoo guraha ku jiro jingadna ma duleesho waxa adoo hadlaysaa hoostaada la kugu soo dhacay ma arki kartaa dhagaxa lagu soo tuuray meesha uu ku dhacayo iyo inta uu leeyahayba dhagaxa waxa waan aruurin hal meel wada dhignay dad oo hadda arintaas ila arkay way wada joogan dad marxaanta dad wadaadayaash way ila joogan oo arintan waxa weey waa arin dhacday waa dhagaxyaashana aan gacantooda aan ku aruuriyo dadkana dhan way wada arkay amay wax idin gaarsiiyeen dhagaxdu adiga iyo caruurtaadaba adiga زائد ما واحدة زائد ما لكن وحير adiga waa iska jira maadaama dhagax la tuura Falastiin oo kale adiga qasab waxa gaar ma kullee waa iska alxamdulillah ilaahay ayaan u mahadcelinayna hadana waa asmaad qabna alxamdulillah maxay kula tahay dhagaxdan la idinku soo tuurayo in ay idinku soo tuurayaan maxaad ku micnayseen arintan horta waa garan wayna ma garad laakiin dad culimada xalay isku imaaday quraan baa la akhriyay markii quraan la akhriyo waxa weey horta waa la joojinay adiga wax yar ka baad culimada markay baxo waxa waa la soo bilaabay la tuuray kul arintan waa arin la garan waa jinniya maqaadir ilaahi waa garan waa ilaa iyo intoo kala deganeedeen guriga hadda weerarku idinku qabsaday waa dad farabadan aniga iyo xaaskayga ilmaheeda iyo dumaashida iyo walaasha iyo dad farabadan wada joogna muddo intee leegaad guriga deganeedeen muddo adiga guri waxaan dhisay horta laba kun iyo lixdii ma garad waxyaalahaas dhan ma soo arkin adiga wax yar meeshan qaxqaxa bilaabay meeshan waa laga carabay meel burga la dhaha tagnay waa ku soo noqonay alxamdulillah adiga 4 biloodaan jooga wax ma arkin laakiin hadda weerar roocaad ahna lagu bilaabay dad kale oo deegaanka degan oo arintan ay qabsatay ma jirtaa dadka wallahi ma sheegi karo laakiin hadda waxa magaalada horta xalidan ma la seexan dadka walwal quraan guri walba quraan la akhrinay Abdulsaaq Abdurrahmaan Ahmed oo kuma cadheer qarni Abdulsaaq waxaad ka warantaa arintan qoysku ka cabanaya dhagaxda lagu weeraray ilaa iyo hadda maxaa lagu micneeyay horeyse ma uga dhacday magaalada iyo horey uga ma dhicin warintan waa arin nagu cusub oo ugu ah guriga anaga shalay waa tagnay markaan tagnay anagoo fara badan guriga dhagaxa wuxuu ka imaanayaa kor jiingada kuma soo dhacayo oo jiingada sharxanteeda laba maqlaayo jiingadii ma dumashamayso dhagaxiina waa nagu socdaa waa soo dhacaya oo inta alwaaxda maaragtay guriga hayso buu ka imaanayaa xaggooda guriga dhagaxa saas u soo daadanaya waa yaabnaa anaga waa cudbilaysanay banaankaan usoo yaacnay علماء في القرآن الأقري وحي والإستاجي علماء ما كي بحضو حتى نضيح السيري وبلابنايا نقوص دولك كسوب حي نكور كيمانايا دولك هوس تسميع دقاح قاري كيمانايا مر انتي ليجيهين دقاح دا سيميسانهان لو هو وين كوكوسين هذا هو حنقو يا سيلا بقول ما كنتم جراميراس guriga qoysku ay ku jiraan waxa uu sheegay ninkii guriga deganaa in gurigu uu jiingad yahay marka alwaaxda kore ee saqafka haysamay dhagaxdu ka soo dhacayaan mise banaanka sare cirka ku aadan bay dhagaxdu ka imaanayaan annaga saqafka kore oo alwaaxda ay ku taalo wadaxa ka imaanayay marka dhagaxna ma saarna hadii la baariso wal soo wala dhagax waa laga waayay dhagax meesha ka imaanaya taa waxa ka daran reerkii guriga waa laga soo raray guri kale la keenay xalay cishaha markaan tukanay qaylada ku carranadana markaan ku carranay سيني هذا gurigii kale la keenay hadda dhagax lagu bilaabay ma isla gurigii labaad ayaa hadda ay ku socotaa dhagaxdii gurigii labaad ay ku socotaa dhagaxii waxa lagu ciid misaydka baxnaa meeshtii quraan la aqriyo adiga markii dambe gabar marka ku soo degay waa la qabtay way hadleen waxay yiraahdeen gurigaas in loo daayaan rabnaa
دوري طبعا قفوضا نحي ماشي عشان دقنا هاي جروجا إن لو جرو نوضع فردا يلادين guriga looga guurayo ma midkii hore looga soo guurayba mase waa midka kale ee hadda qoyska la soo dejiyay ee labaad maya kii hore reerka laga soo raray kii hore reerka laga soo raray maxay ku andacoonayaan waxay ku andacoonayaan hadda cid garan karta malaha kulay xalay quraankii markii lagu akhriyay way baxeen way ka tageen hadda reerka saaka hadda guriga lagu celiyay ilaa iyo hadda wax shaqo ka soo yeeray malaha ma gurigii ay codsadeen in laga guuro haddana lagu celiyo qoyskii qoyskii guriga lagu celiyay quraanna waa lagu akhriyay marka hadda waxaan sugaynaa bal wixii kale ka soo baxay insha Allah mar haddii ay hadleen amaba jinniyo ay hadleen oo codsadeen in guriga looga guuro maxaad qoyskan loogu celiyay guriga musiibada ay ku qabsatay wallahi ninkan wuxuu yiri gurigayga uma guuraayo 114 kan aaminsanahay ilaahay waan aaminsanahay isaga waa qadiibka masaajidka anaga la tujiyo waay waa qadiibka magaalada waa ninka salaada khudbada noo istaago la tujiyo marka wuxuu yiri kitaabadayda aan kala baxaya aniga meeshan waxaan kala helan leenahay arrintan wax aad qiso ku haysaan ama aad sheeko ku haysaan ee hadda ka hor deegaanka iyo deegaano kale oo soo martay ma jirtaa maya aniga kulli intaan ogahay iyo ummadda ila joogtay intii ogtahay waa markii noogu horeysay dhagax la soo tuuray markii noogu horeysay waa qof jinni ku dhaco arki jirnay guri waa laga qeynaa waa arki jirnay laakiin guri sidii bi'aadka kala dhagax lagu soo tuurayo dhagaxina jiingada xaggeedu ku imaanaya jiingadii kuma soo dhacayo shaqanteedu maqlayso jiingadii ma duwasho dhagaxina waa soo dhacayo cirku ku imaanaya meel ku yimid taqaan bakarow ii waran sidee wax u dhaceen horta arrintaan anaka ka hor ma arkin magrad laakiin daraad dadka doornimo ayaa nagu bilaaban jingada ayaa wax loo soo tuuri jiray dhagaxyaasha fara badan ayaa loo soo tuuray magrad dhagaxda xaggee laga soo tuuray xaggeesa lagu tuuray horta waxaan u malaynaa inaan ilmaha nagu dheedheelayaan dad fara badan ay imaadeen oo waa la fiiriyay meeshii wax ilmaha jooga male magrad dhanka kor haddaad ka fiiriso dhanka hoos waa laga soo sideena dhanka hoos haddaad tagto kor waa laga soo sideena imise maalmood uu idinku socdaa weerarka dhagaxda ahi weerarka dhagaxda waxaa nagu socdeen maalintii 8 saac duhurnimo laga bilaabay ilaa bacda alcisha culimada waxay qur'aan baa la saaray adiga habeenkaas alxamdulilah wax la soo tuuray ma jirin si nabad ayaan seexana ma garad maalintii labaad bacda salaad adiga salaada subax xaafadda waxaa lagu bilaabay jingadan ma kusoo dhacayo saan adoo guraha ku jira jingadna ma duleesho waxaa adoo hadlaysaa hoostaada le kugu soo dhacay ma arki kartaa dhagaxa lagugu soo tuuray meesha uu ku dhacayo iyo inta uu leeyahayba dhagaxda waa hataa waan aruurin hal meel aan wada dhignay dad oo hadda arrintaasi la arkeen waa wada joogaan dad markhaan dad wadaadayaasha waa ila joogaan hadda oo arrintan waxaa weye waa arrin dhacday waa dhagaxyaashana ani gacanteeda ayaan ku aruuriyay dadkana dhan waa wada arkay amay wax idin gaarsiiyeen dhagaxdu adiga iyo carruurtaadaba adiga zaaid ma wax dhaawac zaaid ma laakiin wax yar adiga waa iska jira maadaama dhagax la tuura falastiin oo kale adiga qasab dhaawac gaara ma garan kolley waa iska alxamdulilah ilaahay ayaan u mahadcelinayna haddana waa caafimaad qabna alxamdulilah maxay kula tahay dhagaxdan laydinku soo tuurayo in ay idinku soo tuurayaan maxaad ku micnayseen arrintan horta waa garan wayna ma garan laakiin dadda culimada xalay la isku imaaday qur'aan baa la akriyay markii qur'aan la akriyo waxaa weye horta waa la joojinay adiga wax yar ka bacd culimada marka baxo waa la soo bilaaba waa la tuuray kole arrintan waa arrin la garan waayo jinni miya maqaadir ilaahi miya waa garan waayna ilaa hadda ilaa iyo intoo kala deganaydeen guriga hadda weerarku uu idinku qabsaday waa dad fara badan aniga iyo xaaskayga iyo ilmaheeda iyo dumaashida iyo walaasha iyo dad fara badan aan wada joogna muddo intee leegaad guriga deganaydeen muddo adiga guri waxaan dhisay horta 2006 ma garad waxyaabahaas dhan ma soo arkin adiga wax yar meeshan kaxkaxaa bilaabay meeshan waa laga carabay meel burgaa la dhaha tagnay waa kusoo noqonay alxamdulilah adiga 4 biloodaan jooga wax ma arkin laakiin hadda weerar oo caadi ahana lagu bilaabay dad kale oo deegaanka degan oo arrintan ay qabsatay ma jirtaa dadka wallahi ani ma sheegi karo laakiin hadda waxa weeye magaalada horta xalidan ma la seexan dadka walwal qur'aan guri walba qur'aan la akhrinay Abdulsaaq Abdurrahmaan Ahmed oo ku magacdheer qarni Cabdirasaaq waxaad ka warantaa arrintan qoysku ka cabanaya dhagaxda lagu weeraray ilaa iyo hadda maxaa lagu micneeyay horeyse ma uga dhacday magaalada iyo horey uga ma dhicin arrintan waa arrin nagu cusub oo ugub ah
guriga annaga shalay waa tagnay markaan tagnay annagoo fara badan guriga dhagaxa wuxuu ka imaanayaa kor jiingada kuma soo dhacaayo oo jiingad sharxanteeda lama maqlaayo jiingadii ma dumanshamayso dhagaxiina waa nagu socdaayo waa soo dhacaaya oo inta alwaaxda maaragtay guriga hayso buu ka imaanayaa xaggooda marka guriga dhagaxa saas usoo daadanaya waa yaabna anaga waa cudub